Evans Kidero ayaa xabsiga la dhigay Saaka kadib markii hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku eedeysay inuu ku kacay lunsashada hanti dadweyne iyo xadgudubyo ka dhan ah xafiiskiisii xilli uu ahaa barsaabka gobolka Nairobi. Booliiska ayaa Saaka aroortii gaaray guriga uu barsaabkii hore ka deganaa Nairobi halka oo ay ka soo kaxaysteen, sidoo kalena booliiska ayaa la sheegay inay guriga ka soo qaateen dukumeentiyo. Evans Kidero ayaa isaga iska beryeelay eedeymaha loo soo jeediyay, wuxuuna sheegay inaysan jirin laguna dhibaateynayn nafsadiisa iyo sumcadda uu bulshada ku dhex leeyahay. Kidero ayaa horey loo xiray 9kii Agast aynu soo dhaafnay iyada oo 2 jeer maxkamadda la keenay, inkastoo aan lagu helin caddeymo ku filan sida uu isaga sheegay. Eedeysanayaasha kale ee loo haysta wax isdabamarinta ayaa waxaa ka mid ah xogayihii hore ee Nairobi, madaxii maaliyadda, madaxii hore ee xisaabaadka iyo sidoo kale ku-xigeenkii maaliyadda isla countiga Nairobi. Eedeysanayaasha ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah ganacsato iyo shirkado dhowr ah. Si kastaba, dowladda Kenya ayaa dadaal ugu jirta ciribtirka musuqmaasuqa iyo sidoo kale wax ka qabashada ku-tagrifalka awoodeed ee shaqaalaha dowladda qaarkood ay ku kacaan xilliyada ay xafiisyadooda joogaan. Cabdirasaaq Sheekh Xasan, Somali Cable, Nairobi.